أحمد شريف عمر وزيركii hore ee caafimaadka maamul goboleedka Galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka Somali Culture ahna xiriiriyaha Galmudug iyo Jarmalka Cabdishakuur Cali Jarmal oo la hadlay MMTV ayaa ka waramay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada maamul goboleedka Galmudug sidoo kale waxa ay sheegeen in ay jirto deegaanadaasi biyo la'aan baahsan isla markaana dadkii deegaanadaasi ay ka hayaameen waxaanay codar baaq ugu direen maamul goboleedka Galmudug iyo sidoo kale hay'adaha ay qusayso waxaanay sheegeen inay geystooda ku howlan yihiin sidii dadka deegaanadaasi taakulo iyo gurmad ay u gaarsiin lahaayeen waa mahadcelinayaa ayaanla iyo TV-ga MMTV oo maanta yani inaan ka hadalno arrimaha abaaraha dalka Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya waxaa jirta abaaro aad u badan aad u weyn abaarahaas habo ugu darnaadeen gobolka Mudug iyo Gado special waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta abaarta gobolka Mudug abaar ayaa ka dhacday gobolka wuxuu ku caan yahay xoolaha waliba special geela iyo ariga laga soo bilaabo Saxqurun Saaxo Deeqla Laanwaaley dhammaan waa laga soo qaxay waxa loo hayaantay waqooyiga Mudug abaarta waa soo noqotay tada kale isla gobolka dhinacan kale ilaa Xingod iyo Afarwaaqo meeshaan la yiraahdo Godod Gacmo Fale Qarqoora ayadana sidoo kale waa laga qaxay gudaha Xaloosh sidoo kale fikirooda ka dhacay dadkaas ay u jeedaan oo intaas yani qaxay oo ka cararaya abaartaas iyo oonka iyo daaqlaanta deegaankaas sida ogtiin wuxuu ku tirsanaa roobka ceel badan kama qodna ceelasha ka qodnaana waxay ahayn ceelal dhanaanka iyo cusbada ku badan tahay isla kuwii ah hadda la haynin oo biyooda haddaa aragtid waxa waaye biyo oo dac ah oo aan naftaba aad sii karin in la cabo waxaa jira walaalo muxsiniin oo yani isxilqaamay ay ka mid yihiin wiilasha dhalinyarada baraha bulshada isticmaalo TikTok isticmaalo oo abaaraha yani u gurmada dadkaas waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida ummadiina ugu gurmateen waa niga mahadcelinaynaa abaarta waxa loo bixiyay sima ayaa loo bixiyay sima waxa lagu bixiyay ninkii haystay 200 oo neef iyo ninkii 10 neef haystay maanta waa sagxad cad ay taagan yihiin wuxuu u baahan yahay rabbi iyo isku tashi wax la yiraahdo in dadka isku tashtaan ganacsatadooda ninkooda wax haysta dadkooda qurbaha jooga ninkii yani meel ka keeni kara booyad biyo ka keeni kara inuu yani la gaaro waxaan wacyigelin anaga wacyigelintaas iyo wixii karaankeena awoodnana waa ka qayb qaadan doonaa waxa kale oo mahadcelinaa walaalaha kale oo talwadaag ee abwaana Saare Daahir Mir ay hogaaminayso waxaan leenahay walaal waa maasanta adiga iyo walaalaha kale oo talwadaag waan iga mahadcelinaynaa abaarta wax soo noqotay waxay u baahan tahay in laba qaybood loo qaybiyo mid oo mustaqbal ah oo yani mid fog iyo mid dhow loo qaybiyo mid dhow waa in dadkii lala gaaro waxay cunaan iyo waxay cabaan lala gaaro midda mustaqbalkana waa in laga fakaro sidee lagu heli karaa 30 kilomitir ama 20 kilomitir ba ceel sidee loo heli karaa xoolo dhaqatada sidee caws keedsadaan u heli karaan waxaan ka shaqeynaa haduu Ilaahay nafta Ilaahay yiraahdo hadda wixii tabarteena hadal iyo af iyo cod iyo adin wixii aan geysan karnaa waa geysanayna dowladda Galmudug waxaan ka codsanaa mataqaanaa inay sida hadda wasiirku sheegay kale waa inay u soo diraan wasiirka tamarta biyaha wasiirka caafimaadka wasiirka masiibada in madaxweyne qorqor waxaan ka codsanaynaa in uu dadka abaar u magacaabo wuxuu ka mashquulsan yahay doorasho wuxuu ka mashquulsan yahay su'aal xildhibaano badan
wuxuu ku mashquulsan yahay in uu mootahay wax kale ku mashquulsan yahay dadaalkeena hadda waa wadnaa aniga ahaanteeda waxaan ahay xiriiriyaha galmudug state jarmalkaan ahay waxyaalo badan aan qabtay hadda jarmalka waxaan ku howlanahay cid kastoo wax naga qaban karto inaan codkan u dheer u gudbino sida dowladda jarmalka oo kale sida adiga wax kastoo hay'adoo jarmalka ah aan u qayl dhaamino si wax noola qabtaan aniga xataa waag hore biyihii la cabi jiray oo 90% dhanaanka ahay hadda waa kana ayaan leh waa 100% dhanaan waa biyihii dhanaanka hadda la waayay biyahan ayaa la cabi jiray hadda biyahan la waayay biyihii dhanaanka wasaqada hadda waa la waayay kasto oo wax nala qaban karto oo diin waxaan daneynayso waxaan u baahanahay inay wax nala qabato hadda waxaan rabnaa meel kasta codkeena aan gaarsiino aan walaalayaal waxa nala qabto waa yalla mudakar MMTV jarmalka